لاح النور لاح النور يا علي يا كبير، 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 يا حكيم يا خبير يا حليم يا ستير، 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 أنت نبراس السرور كلي في كل الأمور، في النشاط والفتور والمساء والبكور، والحياة والقبور والمعاد والنشور والحساب والعبور، فوق نيران السعي أنت نبراس بسم الله الرحمن الرحيم. كلي في كل الأمور. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، waxaan in sha allahu tacaala mowduucayna ka hadlaynaa hadii ilaha ihahdo maxabat الrasuuli salى اllahu عalayhi wasalam bayn اlifraadi waالtafriid, jacaylka nebiga calayh الsalaatu wasalaam iyadoo aan laga gaabinayn laguna xadgudbaynin. muxuu yahay jacaylka nebiga calayh الsalaatu wasalaam? nebiga see loo jeclaada calayh الsalaatu wasalaam? ka gaabinta jacaylka nebiga calayh الsalaatu wasalaam muxuu yahay? in sha allahu iyaan xowla hada nudandin biidni اllahi اlkariim. waxaan ognahay islaamka waxaa lagu soo galaa oo qofka uu muslim ku noqdaa inuu ashahaato, inuu yidhaahdo oo iclaaniyo, qalbiga uu ka rumeeyo, qalbiga uu ka howlgeliyo, carabkan uu oga dhawaaqo, xibnihiisana ay ku shaqeeyaan kelmadda ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah. waxaan ka markhaati kacayaa ilaah subxaanaه wa tacaala ilaah xaq lagu caabuda inuusan jirin, ilaahay ma ahee jala wacalaa. waxaan kaloon caddaynaya oo ka markhaati kacaya nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam inuu yahay rasuulka ilaahay uu soo dirsaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh. kelmadda waa kelimata towxiid, qofka hadduu iclaamiyo islaamka uu ku soo galo. marka kelmaddaas marka uu qofka ku dhawaaqo iyadoo shuruudaheedii wadata, shuruuday leedahay kelmaddan. markaad leedahay kelmaddan ku dhawaaqaysa shuruuday leedahay. marka shuruudda gaar ahaan qeybta waxaan ka markhaati kacayaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay soo diray. waxay leedahay shuruud. shuruudda haddaan la helin markhaati kaca uu ka markhaati kacay qofka nebiga calayh الsalaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay, weli waxbaa ka dhiman, sax ma aha. marka shuruudda waxaa ka mid ah anna muxamada rasuulu اllah, qiridda aad qiraysa rasuul ilaahay inuu yahay nebi llaahi moxamed calayh الsalaatu wasalaam. shuruuddeeda waxaa ka mid a sida culamada isku raaceen, waxa u horeeyo inaad u hoggaansamaysa nebiga calayh الsalaatu wasalaam, طaacatu الnabiy sal lla alay wasalam fii ma amara, inaad nebiga u hoggaansamayso, inaad rumaysan tahay oo adeecaysa nebiga calayh الsalaatu wasalaam, marka asaas leedahay. taasna waana la amray oo nebiga hadduu ilaahay soo diray calayhi الsalaatu wasalaam, ilaahayaa soo diray, macnaheedu waxa way wax alaala wuxuu yidhaahdo in la adeeca nebiga calayh الsalaatu wasalaam. ilaahay wuxuu yihi subxaanaه wa tacaala man yudic الrasuula faqad aطaaca allah, ninkii rasuulka adeeco wuxuu adeecay ilaahay subxaanaه wa tacaala. waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida,
ninkii ka jeesto adeecidda nebiga calayhi salaatu wasalaam adiga kuma aanan soo dirin inaa xifdisa nebi maxamedow ilaahay baa la xisaabtamaya subxaana wa tacaala waxaa qur-aanka ka buuxdo yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula ilaahay adeeca rasuulkan u hoggaansama qul atiicu llaha wاrasuul ilaahay adeeca rasuulkana adeeca wax shuruuda laguma xiro nebiga adeeciddiisa calayhi الsalaatu wasalaam marka waxaa la idhaha waa adeecid mudlaq ah waa inaad u hoggaansan tahay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waa shardiga koobaad shardiga labaad shardiga koobaad intaynaan ka bixin nebiga calayhi الsalaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay nebiga adeecidda buuxdo oo nebiga la adeeca calayhi الsalaatu wasalaam waxay ku xihan tahay gelitaanka jannada inaad jannada gasho waxay ku xihan tahay inaad nebiga u hoggaansato si aan wax kala har lahayn waxaa la idhaha muطlaqu dukhuuli الjanna mutacalliqu bimuطlaqi طaacatihi jannadoo la galo waxay ku xihan tahay nebiga oo si la adeeca la raaca nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh nebiga wuxuu yihi calayh الsalaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna jannata ilaa man abaa ummaddeeda o dhan jannaday gelayaan ilaa qofkii isaga jannada iska diida ma ahe oo yidhaah janno ma rabo waxay yidhahdaan saxaabada qiila waman ya'ba yaa rasuula allah yaa diidaayo jannada rasuulka ilaahayo qofkee baa jannada diidaayo waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi nebiga calayh الsalaatu wasalaam man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa ninkii anigii adeeca wuxuu gelayaa jannada ninkii aniga i caasiyana waa iska diiday jannadii wuxuu yidhi janno ma rabo aniga man aطaacanii ninkii ii hoggaansama dakhala aljanna jannaduu gelaya waman casaanii faqad abaa qofkii aniga i caasiyana jannadii waa iska diiday nebiga calayh الsalaatu wasalaam qofkii jecel waxaa laga maarmaan ah inuu u hoggaansamo inuu nebiga adeeco calayh الsalaatu wasalaam maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa adeecidda iyo hoggaansanaanta waa miraha ka dhasho jacaylka waxaad jeceshahay waa isu dhiibtaa waa u hoggaansataa wax allaala wuxuu yidhaahdaad yeeshaa waa aqbashaa ilmahaada waa jeceshahay markuu jacaylkooda kaa bato hadduu ku yidhaha wax kasta ii gad wax kastaa u gadaysaa oo heli karto meel kastaa iskugu tuuraysaa shaqo kastaad u gelaysaa si aad maaragtay waxaas dalabkiisii u oofiso leanna waa jeceshahay marka waxaa la yidhahdaa hoggaansanaanta iyo maqlidii adeecidda waxay ka dhalatay jacaylka marka nebiga calayh الsalaatu wasalaam qofka jecel oo dhab ahaan u jecel waa inuu u hoggaansamaa waa inuu hoggaansamo nebiga calayh الsalatu wasalaam ninkii sheegta nebiga inuu jecel yahay oo uu ku dayasho la'aan iyo adeecid la'aan qofkaa beenuu sheegaya waa beentiis nebigaan jeclahay calayh الsalaatu wasalaam mana adeecayo wax isla ma aha isma qabanayso waa inaad markaa nebiga haddaad jeceshahay u hoggaansataa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa shardiga labaad oo shahaadada anna muxamadan rasuulu اllah laga rabo waxay tahay tasdiiquhu fima akhbar inaad rumayso nebiga calayh الsalaatu wasalaam wax alla wuxuu ka warramay waa shardi iyadana tasdiiquhu fima akhbar waxaa tiri nebiga ilaahayaa soo diray salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa iclaamisay iclaamintaadaas waa inay ku hoos jirtaa inaad wax allaal wuxuu nebiga sheego inay sax yihiin oo khabarkiisa inuu run yahay waa inaad rumaysaa qofkii markaa beeniye shay nebiga ka sugnaaday calayh الsalaatu wasalaam qofka lishahwa asaga shahwo ku jirta darteed ama waxbuu jecel yahay wuxuu jeclaay ayuu nebiga xadiiskiisii ka hor yimid marka ma raba inuu nebiga adeeco calayh الsalaatu wasalaam nebigu ka leexanaya salawatu ullahi wasalam lianna nafsadiisa waxay rabtaa waxa uu nebiga rabo wax ka soo horjeeda ama lihawa hawo asaga ku jirto inxiraafa ku jira waxbuu jecel yahay waxbuu iska jecel yahay ku jadbaysan yahay in laga celiyo ma rabo waxaas
xadiiskii nebiga calayh isalaatu wasalaam waa iska tuuraya daaqaduu ka tuuraya ma rabo marka qofka saasoo kaleenta ah yacni waa qof ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyey faqad kadaba allaha wa rasuulah maxaa yeelay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa laga dhowray can alkhata'i waalkadib nebiga waxaa laga ilaaliyey inuu gafo iyo inuu been sheego ilaahay baa ka dhowray subxaanaه wa tacaala ilaahay siduu yidhi wamaa yantiqu can اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebiga kama hadlaayo hawadiisa waxa asaga uu iska rabo kama hadlaayo waxa uu ku hadlaayo wax kale ma ahee waa wixii ilaahay u waxyooday subxaanaه wa tacaala qur-aankaa saas ilaahay ku leeyahay jala wacala ilaahay baa saas leh markaa sunnada nebiga waa waxyi sida qur-aanku waxyi u yahay ayay sunnadana waxyi ilaahay xaggiisa looga soo waxyoonaya ay tahay ma dhici karta markaa wax loo soo waxyooda nebiga inuu been yahay inuusan sax ahayn suurtagal ma aha marka haddaad tidhaahda sax ma aha wuxuu nebiga sheegay xadiiska nebiga calay sl hadaad tidhahda sax ma aha ama warkan waa been aad tidhaahdo waxaa tahay qof ilaahay rasuulkiisii beeniyey labadaba waana gaaloobaysaa diinta waa ka baxaysaa diinta waa ka baxaysa haddii shuruuddii mawaanicdii lagaa waayo marka waa shardi nebiga inaad maaragtay ka rumaysa waxa wuxuu warramo dad badanoo waxaa jira axaadiista nebiga calayh isalaatu wasalaam iska fiirinaya kuu rabana qaadana kuu rabana iska tuuraayo ama dhahaya axaadiistan wuxuu ka hor imaanaa caqliga ama wuxuu ka hor imaanaa caqliga uu sheega waa waxa markaas la caadaystay oo dadku la quma caqli kale ma jiro dad qof caqli uu leeyahay caqliyaashan isku miisaan ma aha ninba waxbaa la qurxan marka axaadiistiisaasuu ku radinaya ama hawo asaga ku jirta darteed u radinaya siduu ibliis u radiyey hadalkii ilaahay subxaanaه wa tacaala ibliis markii la yidhi nebi aadan u sujuud wuxuu keenay shubhuu keenay wuxuu yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin aadan maxaan ugu sujuudayaa sababta ilaahayow asaga dhoobaadba ka abuurtay anna dabaad iga abuurtay amarkii ilaahay saasuu ku celiyey uu ku radiyey sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxyaalaha lagu radiyey waa badan yihiin qofaa mashruuc wata mashruuciisaas ma rabo sunnada inay ka celisa ma rabo marka axaadiista ka hor imaanayso dhan yacni waa radinaya lugta ku dhufanaya qofkaa qof jecel qof nebiga jecel ma aha qofkaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka shardiga labaad waa in aad rumaysaan nebiga wax allaala wixii ka sugnaaday oo uu ka warramay nebiga calayh isalaatu wasalaam arrinka saddexaad oo shardiga ah oo shahaadada nebiga calayh isalaatu wasalaam towxiidkiisa markaad ku dhawaaqaysa ashhadu anna moxamedan rasuulullah waxaa lagaa rabaa inaad ka fogaata nebiga wuxuu reebay calayh isalaatu wasalaam ijtinaabu maa nahaa canhu annabiyu sal lla alay wasalam wazajar inaad ka harta nebiga wuxuu reebay iyadoo laga bilaabayo dembiyada midka ugu waaweyn oo ah u shariig yeelidda ilaahay subxaanaه wa tacaala shirkiga nebiga wuxuu ka reebay dadka waxa ugu weyn dembiga ugu weyn waa ilaahay in wax lala wadaajiyo subxaanaه wa tacaala waxaa loo soo diray nebiga inuu towxiidka khaalis yeelo oo ilaahay u khaalis yeelo subxaanaه wa tacaala dadkana uu ka saaro shirkiga iyo ilaahay wax lala wadaajiyo subxaanaه wa tacaala inuu dadka ka saaro oo u saaro min ka saaro min cibaadati اlcibaad ilaa cibaadati اllaahi waxda inuu dadka ka saaro dadka inay iscaabudaan dhagax in la caabudo nayjar in la caabudo in wax jinni la caabudo shaydaan la caabudo boorane mingis jinnijaan khuraafaadka faraha badan ee dadka ay caabudaan waxaa faraha badan inuu ka saaro dadka oo dadka ilaahay keligiisa ay caabudaan subxaanaه wa tacaala marka wax alaala wuxuu dadka ka reebayn waa inaad ka hartaa oo shirkiga iyo alla u shariig yeelidda waa inaad ka hartaa oo nebiga aad uu kaa reebay calayh salaatu waa inaad ka fogaataa dembigaas shirkiga u weyn kadib dembiyada waaweynna waa ku xigaan muruuran bilkabaa'ir dembiyada waaweynka ah oo la yidhaaha muhlikaadka dembiyada kabaa'irta waaweyn ilaa maaragtay dhowr iyo toddobaatana la gaarsiiyey waa badan yihiin culamada kutubay ka alifeen dembiyada waaweyn oo lagu halaagsan muhlikaada la yidhahda qofka way halaagaan zinada dadka way halaagtaa
khamriga waa halaaga kabaa'irtuu ka mid yahay xanta waa kabaa'irta yacni waxaa ka mid ah يعني إلهي غير كيسو لغو دارته سبحانه وتعالى يعني بين أبورك وحاسو إدير دنبيده وفرب بدين كبائرتا وكو إلهي حد وكؤوغي سبحانه وتعالى أما إلهي نعلد وكسو قفك السماء وكسو دجيري نعلد كل عيسو دنبيده ووين وإنو كهرا قفك سيدا سوكله دنبيده يريركاي وحيالها كراهيدا وإنو كهرا oo u arka inay yihiin dambi uu nabiga reebay kaleey salaatu wasalaam iyo quraanka ilaahay lagu reebay marka qofka marka inta uu nabiga jecel yahay kaleey salaatu wasalaam ayaa iimaankiisu siyaado yahay inta nabiga jeceshay kaleey salaatu wasalaam nabiga mar reebay kaleey salaatu wasalaam waxa kan yaani waa ka haray asxaabada ridwanullaahi calayhim khamriga way dhaqan u ahaan jiray sida cuntada u yaqaanaan iyo canjeerada u dubtaan oo kale u yaqaaneen khamriga naagaha sameyn jiray warshaday lahaayeen dadkoo dhan cabi jiray golayaasha odayaasha lagu cabi jiray dhalinyarada cabi jirtay intaas gabayaday ku tirin jireen waa ku faani jireen ilaahay hal aayadu soo dejiyay subxaanahu wa tacaala aayadaas ilaahay uga reebay jalla wa ala inama al-khamru wal maysir wal ansab wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وحيرين انتهينا يا رب إله هو كهر نيره انتهينا يا رب خمر مالك كاسا أودن بيسي نبي وحورا وهننا إعلام بحر ألا قد حرم الخمر والخمرجي والله حرمي والله وذا دادي دت كودر لأنه وادت توحيد سدوا أشهد أن محمد رسول الله يري وادت إلهي سبحانه وتعالى رمي جل وعلا تاسي كمر خاتك عن الرميسين وإن مرك هدي الله رهيب وحي وإن كهران دنبيه واوين دنبيه يركا انتبه مركا وإن كهران قفك مركا انتو النبي جعلي عليه الصلاة والسلام أيا إيمان كيسي هاي هدي النبي سيجي عليه الصلاة والسلام إلهي وحو جعلي سينا يا أعماشا ونكسن وحنا لنعبي سينا يا وحيالها حن أودن كفرق إيا فسوقا إيا حمانتا إيا إلهي عاسنتي سنة لنعبي سينا يا مركا جعلك النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لشكات لشا وحي النبي أقول رهيب ودن أتكهرتو النبي وحو هل أستر ناقها يعني ناقها أن حجاب النبي وانا عليه الصلاة والسلام يعني والنساء كاسيات عاريات يعني وارهب وحير ما أركن صنفان من أهل النار لم أراهما بعد لبقل وأهل النار ولما أركنوا النبي إلهي أنا كما قال إنه إلهي اتصيو مركا وحكمته ير النساء كاسيات عاريات هوين درقبه أو إسلام كان قاون هوين درقبه أو قاون واحد رؤية قوان لكن وقاويهن يعني ما حجابنا لو جيدا مركا نبي هدور رابعين هوين أيسن حجابا إن حجاب لنا هتدو نبي الرابع عليه الصلاة والسلام وإن مركا أذيقنا وإن كهرت أرنكاس هذا النبي جعشها عليه الصلاة والسلام هذا جعله وركيسيان ديدا يا ما حجابنايو madaxaan iska banaysanaya sida gaalada u labisanaya maxaa ku kala duwantiin adiga qofkii kale maxaa ku kala garanaya maxaa janno ku galaysaa maxaa ku rumaysantahay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo rasuulka ilaahay waa inaad fulis wuxuu reebay waa inaad ka hartaa oo tiraa ma nabiga reebay kaleey salaatu wasalaam loo noqon ma maanta kadib waa dhamaatay bas waa ilaahu boqol sano lagu soo dhaqmaa ilaahu maartay wax kasta ay ku halaabaan وأنا كهرتها وحي النبي قول عليه الصلاة والسلام هذيك توحيد كادي مرخاتيان كأهل رسولك إلهي إنه إلهي صدري وحباك كادما ما توسند إيمان كادنا ما في عنا مركا وحلقا ربا مركا أرنكاس وأرنكا إن أتكهرت وحو النبي الربيع عليه الصلاة والسلام
shardiga afraad waa inaadan ilaahay ku caabudin subxaanahu wa tacaala ilaa wixii ilaahay uu jideeyey ma ahe wuxuu ilaahay jideeyey calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayh wasalam nebiga carabkiisana lagu jideeyey waxay ka mid tahay waxaan rumeeyey rasuulku inuu yahay ilaahay qofuu soo diray inuu yahay waa inaad marka haddaad ilaahay caabudayso waxa ilaahay sida ilaahay u amray in loo caabudo inaad u caabudaa waana siduu nebiga amray calayhi salaatu wasalaam oo uu u sameeyey oo nebiga carabkiisa uu noogu soo dhiibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh cibaadada waxaa lagaa rabaa sideeda waxaa la yidhaha alcibaadatu alaslu fi lcibaada alxasru cibaadadu waa kooban tahay waa tawqiifiyana waa la yidhaahdaa tawqiifiya waxaa loo jeeda cibaadada waxay wixii cibaado waa lagu yidhaahdo unbaa cibaado ah waxaan aan cibaado lagu dhihin cibaado ma noqon karaan waxa adiga jeebkaada aad ka samaysatay cibaado ma noqon karaan waa in nebiga wuxuu ku amruu ku yidhaahdo waxaana ilaahay loogu dhowaanaa subxaanahu wa tacaala waa inaad marka aad ilaahay ku caabudaa subxaanahu wa tacaala nebiga sidaad u caabudaya ilahay waa inaad nebiga ka qaadata calayh isalaatu wasalaam waa inaad nebiga waddadiisa uu ilaahay loogu dhowaanayo waa inaad waddadaas martaa waa inaad mid adiga gaarkaada u jeexan waa inaad adiga mid gaarkaada u jeexan waxba kuu tari mayso haddaad jidka la raacdo jidka loogu dhowaado ilaahu ugu sokeeyo waa jidka nebiga calayh isalaatu wasalaam nebiga wuxuu yhi alayh salatu slam man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa rad ninkii camal sameeye shaqo qabto shaqadaasoo annaga aynaan amrin waa lagu celiyey isagaa lagu celiyey marka waa inaad adigaada dhihin nebiga anaa ka fiican oo anaa si wanaagsan ilaahay u caabudayo oo aadan khilaafin nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ka mid tahay shuruudda in ilaahay lagu caabudo wuxuu nebiga jideeyey calayh isalaatu wasalaam arrinkaas waa arrin muhiim ah wax badanuu kaa celinaya bidcooyinko dhan uu kaa celinaya wuxuu kaa celinaya wax badan inay kula qurxanaado adiga jeebkaada ka keensato oo adiga iska samaysato wax kula fiicnaadaan waxa hadday cibaado yihiin waa inuu nebiga amraa waa inuu ilaahay amraa subxaanahu wa tacaala waxaanan cibaado ilaahay uusan ka dhigin cibaado ma noqon karaan haddaad ku feera jabto adigaa ku feera jabay waxba lagaa aqbali maayo marka nebiga waxaa ka mid a rumayntiisa iyo jacaylkiisa in ilaahay lagu caabudo subxaanaه wa tacaala jidkuu nebiga jideeyey calayh الsalaatu wasalaam jidkuu nebiga jideeyey calayh الsalaatu wasalaam jidkaasaa ah jidka ugu dhow ee ilaahay subxaanaه wa tacala loogu dhowaan karo waxaa afartaa shardi marka laga yimaado afartaas markay kuu dhammaystiran yihiin ayaad run u rumaysan tahay nebiga risaaladiisa run ahaanna aad u jeceshahay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa jacaylka nebiga waa laba qaybood waa laba derajo derajada u horeyso sida ibnu rajab alxambali uu qoray wuxuu yidhi derajada u horeyso waa derajo yacni derajada u horeyso nebiga waa derajo waa jacayl waajib ah jacaylka waajibka micnaheedu waxaa loo jeeda waxaa xaaraanta inaad ka tagto wax alaala wuxuu ku amrayna aad yeesho oo waajib ah waxay ka mid tahay jacayl waa jacaylka waajibka oo asalka ah iyo jacaylka ah sunnooyinkiisa inaad raacdo nebiga calayh isalaatu wasalaam inaad maaragtay wax alaala wixii aan waajib ahayn inaad nebiga kaga dayata calayh isalaatu wasalaam inaad maaragtay waxa aan waajibka ahayn waxay noqonaysaa marka maxaba hayra waajiba ay noqonaysaa marka waxay soo raacaysaa middan waa sida ilaahay jacaylkiisa subxaanaه wa tacala ibn xajar casqalaani wuxuu leeyahay maxabat اllaahi calىa qismayn ilaahay jacaylkiisa waa laba qaybood fardu wa nad mid waajib ah iyo mid sunno ah faاlfardu almaxabaة alatii tabcaثu calى imtihaali awaamirihi waاlintihaa'i can macaasihi maxabada jacaylka waajibka ah waa midda kugu bixinayso ilaahay inaad amarkiisa qaadato wuxuu kaa reebayna aad ka harto oo aadan caasin ilaahay subxaanaه wa tacaala wاlridaa bima yuqadir waxa ilaahay qadarana inaad maaragtay raalli ku noqoto faman waqaca fii macصiyaةi min ficli muxarami aw tarki waajibin falitaqsiirihi fii maxabat اllah qofkii ka taga shay waajib ah ama shay xaaraan ah ku dhaco qofkaas wuxuu sababteeda ay tahay wuxuu ka gaabiyey jacaylka ilaahay subxaanaه wa tacaala jacaylka ilaahay ayuu ka gaabiyey
محايا حيث قدم هوى نفسه حيث قدم هوى نفسه ما هرمري نفتي سوحي جعلي وحي إلهي جعله وحو كهرمري وحو أساق جعله marka jaceelkii runta ilaahay laga rabay aad ka gaabinaysa laana jaceelka runta waa inaad jeceshahay ilaahay waxa uu jecel yahay subhanahu wa ta'ala yaani waa inaad adiga ilaahay jeceshahay wuxuu raali ka yahay hatta waxa nafsadaada jeceshahay marka loo yimaado marka sidaas oo kale maxabada nabiga calaysay salaatu waxay noqonaysaa waajib iyo mid sunna ah tawaajibka waa mid kugu bixinaysa amarka ilaahay amarka nabiga calaysay salaatu inaad qaadato waajibka aha wixii xaraanta oo nabiga rabay inaad ka fogaato yaani waxa kale inta kan sunnada ahna waa inaad ku dartaa waxa khayrka oo faraha badan oo nabiga jiday calaysay salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay jalla wa ala inta markaan ka nimaadno ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ya ayuha an-nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu وتسبحوه بكرة وأصيلا نبي الله وحن كدرني أذيقو مرخاتئة أذيقو مرخاتئكو أمد لقودر مالنت قيامة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني هدان كلان مادنا النبي محمد وأذيقو أمتك مرخاتئة هدان كسو صارنا نبي الله دريا أذيقنا مرخاتئة تكون نقطة كوكا nabiga waxa loo soo diray inuu marxaati yahay maalinta qiyaamada ugu marxaati kacay wa mubashiran adigoo bishaareynayo qofkii khayrka iyo nabiga raaco iyo ilaahay waxa uu u sheegayo qofka ugu bishaareynayo janno iyo khayr iyo ilaahay raali ahaanshadiisa subhanahu wa ta'ala wa nadhiran adigoo digayo qofkii ku caasiya uga digaya ilaahay cadaabkiisa iyo caradiisa subhanahu wa ta'ala maxaan ku soo dirnay adoo bashir iyo nadiir ah waxaan ku soo dirnay tu'minu billahi wa rasuulihi adinka ina ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysaan saasa nabiga loo soo diray ina rumaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa wa tu'azziruhu ad taakulaysaan nabiga u gargaartaan wa tuwaqqiruhu inaad weynaysaan وتسبحوه إله إنا أتسبح ستان بكرة واسلة قلب يا صبح ساسا كوسو درني نبي الله إلهي مركا وحو شيغي علماء دي رادين أيضا إلهي وحو كو شيغي حقا مشتركا بينه وبين رسوله حق كوضا النحيو إلهي يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان إلا الرميو لتؤمنوا بالله ورسوله إلهي يا رسول كيسين الرميسان مركا حق اسمحوا يا هي رسول كان رسول الله لو رميو إلهنا الله رمي إله نمدي سي توحيد كيس الله جل وعلا وحق كوضا دحيل لبدا وين الرميو وحقا خاصا به تعالى حق إلهي كقار سبحانه وتعالى وحق إلهي كقار كامحوا يا هي وتسبحوه إنا سبحان الله ستان إنا أتسبيح ستان إلهي سبحانه وتعالى تسبيح ذا إلهي أسكالي كليجيس رسولك وحبكم ملها تسبيح ذا يتكش ذا يذكرك رسولك وحاسكالي إلهي كليجيس سبحانه وتعالى وحقا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحق قارة النبي عليه الصلاة والسلام وهو التعزير والتوقير نبي إن لو قرقاره لنا ويني عليه الصلاة والسلام تعزير توحينا علماء مركي تعريفنا وحال هذا ومقع كل منايو وحلا لو وحي قرقاره نبي لو قرقاره عليه الصلاة والسلام iyo xoojintiisa iyo in laga loo diido waxa la wixii nabiga dhibaayo oo dhan taasa tacsiirka loo jeeda يعني اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه توقيرك waxa la yiraahdaa isagana weynaynta waxa la yiraahdaa bayna culimada كما في لسان العرب اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة ومقع كل منايو وحلال وحي حسلونية يود قناشاء من الإجلال والإكرام ووينين يا كرامين النبي عليه الصلاة والسلام كرامين
وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار وإن لولا دغما النبي عليه الصلاة والسلام لنا شرفا لنا كرامة لنا وينية وحنا وحي كإلالنا النبي عليه الصلاة والسلام كبح إلى لقنا إلى وحنا وحي حد وينين النبي عليه الصلاة والسلام كسارايو هذا سوق هذا إنه مركز جعيل كالنبي عليه الصلاة والسلام وحكرنا الشيء إلهي جعيل كيس سبحانه وتعالى جعيل كيس وحكوس ليسيه هاي إلهي جعيل كيس سبحانه وتعالى سيد ابن القيم ويقول إلهي جعيش هاي نبي جنا إلهي صدر صدور جعل وخليلك إلهي سبحانه وتعالى أذيجنا رسولك إلهي جعيش هاي وحدو جعيش هاي إلهي رسولك سئنو يعني مركا كل حكوس ليسيهين هل كاس يسرك كوهيا ولذلك إلهي سبحانه وتعالى القرآن كحكيري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هداتين كو إلهي جعل وحد كنت هذا إلهي جعشهين أنا إصرار عن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وإذ جعلنا مركز سبحانه وتعالى مركز جعلك صحابة رضوان الله عليهم مسلمين وحكنا لنا الرمينتا إلهي الرميسيهين إيه توحيدك إيه إسلام لماذا كنا لنا النبي جعلك عليه الصلاة والسلام صحابة رضوان الله عليهم ويجعل يا النبي نك مركز إسلامه وحي أجعل يا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سي حدافة أجعل يعني سيدا وحل ويدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحل يدي كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جعلك أجعل يدين سداب أها علي وحيري رضي الله عنه كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ وحيري النبي والله وادرت علي وحيري يعني فإنه كان والله نبي وحوها كان والله نبي وحوها بر إلها كدارتي أحب إلينا من أموالنا مدان كجعلناه مالكنا هنتذا aan leenahay dhan marka la isku daro asagaan ka jeclayn wa awlaadina caruurteena asagaan ka jeclayn wa aabaa'ina wa ummahatina aabayaasheen iyo hooyooyinkeena asagaan ka jeclayn wa min al-maa'i al-barid 'ala ad-dama biyaha qabow marka oon ku hayana nabigaan ka jeclayn alayhi salaatu wasalaam hadalkaas waxa ku soo xarshar shifa يعني صحابته سوكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحيري وحن كجعلها رسولك إله والله وحكستوا كجعلها إلا من نفسي أي نفس دي إذا معه نبي وحكير عليه الصلاة والسلام إلا نفس هذا دي جعلها تحته وحيروا كما قناه وصنع وحيري والله وحكستوا كجعلها حتى من نفسي وكجعلها أنا نفس دي تحته وكجعلها صحابة جعيل كذا مركب وحوها وحكوس على إسناد توحيدك يا إن النبي الرعان عليه الصلاة والسلام دينتي سوينية مال كودي يرنك عنت أقلي النبي وحين مال كأني وكنا وحربتك قاضو وحربتنا النورهب وحن نجا قاضتان كجعلنا وحن نورهب تير هذه صحابة رضوان الله عليهم وحي أهين يعني حدافع جعيل كالنبي جعلين عليه الصلاة والسلام rag saxaabada kamid inaan u yimid rasuulka Ilaahayo inaan ku arka ma ahay ma joogi karo marka waxa walwal igu hayso hadii aan dhimto kulay nabiyaasha lagu geeyna adiga iyo rasuusha guriyahooda anigana maaratay dadka hoosaad la gala hadii Ilaahay jannada ii qadaro subhanahu wa ta'ala oo see marka aragtay seen ku soo kuwayni ma rasuulka Ilaahayo maxaa sameeyaa marka يعني وهير كاسو قارسيسيه إنه كول ولا حتى إنه أركوا الجنة هدي قال حتى النبي أركوا عليه الصلاة والسلام مركا النبي عليه الصلاة والسلام حكيري مركا فأعني بكثرة السجود سجود بدنان هذا يو كلمة صلاة بدن تكو يعني مركا جعلك النبي عليه الصلاة والسلام نين صحابة كم ده لقبتي قال ذا قبتي قريش ويسوح جيدي كسو حرين إني مدح كجويان أبو سفيان مركا قالها وقال مدحوها أيا أيمد وحال يجر نك زيد بن دثنة زيد بن
dathna zayd uu yimi wuxuu ku yidhi zayd waa geedku ku xiray in la dilo la rabo marka wuxuu ku yidhi ilaahaan kugu dhaarshay unshiduka billaah ilaahayaan kugu dhaarshay qofka haddii saa la yidhahdana carabtu waxay ahaan jireen waxa ka runtay sheegi jireen mar hadduu gaal iyo muslim wuxuu raba ha noqdee ninkan waaba nin muslim oo la dilaayo unshiduka billaahi ya zayd zaydow ilaahaan kugu dhaarshay atuxibu ana muxamada al'aana cindana makaanaka nadrib cunuqah wa inaka fii ahlik ma jeclaan lahayd in nebi moxamed booskaada hadda uu ku xiran yahay oo madaxaan ka goyno adigana reerkaadii aada joogto ma jeclaan lahayd wuxuu ku yidhi qaala wallaahi ma uxibu ana muxamada al'aana fii makaanihi wallaahi wuxuu yidhi ma jecli nebi moxamed meesha hadda uu joogo alladii huwa fiihi hadda uu joogo tusiibuhu shawkatun tu'diihi inay gaarto qodax dhibta inay muddo ma jecli buu yidhi wa inii jaalisun fii ahli anoo reerkayga joogo anoo ehelkayga joogo qodax inay muddo oo qodaxay saa u taabato lugtiisa ama korkiisa ama wax dhiba ay nebiga taabtaan calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ma jecli waa i dhaarisay buu ku yidhi markaasuu abu sufyaan wuxuu la yaab wuxuu yidhi maa ra'aytu min annaasi axada yuxibu axada ka xubi asxaabi muxamadin muxamada weligay ma arkin qof dad jecel ma arkinuu yidhi weligay sida ay u jecel yihiin asxaabada muxamed say u jecel yihiin sala allahu alayh wasalam weligay ma arkinuu yidhi dad saas u jecel marka jacaylka nebiga waxay ahayd marka inay maalkoodii iyo nafsadoodii siiyaan raacaana nebiga calayh isalaatu wasalaam dagaalkii uxud gabar ah waxaa la yidhi saxaabadda ka mid ahayd radia allahu canha ee saxaabada waa tii dad badan lagu laayay dagaalkii uxud galabtii marka la soo noqda waxaa la yidhi aabbaheedaa ku jiray walaalkeedaa ku jiray ninkeedaa ku jiray dadka maaragtay dagaalka ku jiray markaasi waxay tihi war nebigii ma nabad qaba aabbaheed ma weydin walaalkeed ma weydin waa socotay waa oroday ilaa nebiga ay ka aragtay calayh isalaatu wasalaam markaasi waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal kullu musiibatin bacdaka jalal musiibo kasta oo dhacdo waxay tihi rasuulka ilaah adiga marka lagu fiiriya waxba ma aha wax kasta oo dhaco yani waa say u jeclahay waa garanaysaa haween caruurteesay u jeceshahay ninkeesa aabbaheedsay u jeceshahay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal musiibo kastoo adiga haddaadba nabad qabto waxa kalenta macno ma laha miithaalada saxaabada ridwan ullah calayhim yani xisaab ma laha say u jeclaayeen nebiga calayh isalaatu wasalaam marka jacaylka nebiga saxaabada ridwan ullah calayhim waxay ahayd inay raacaan nebiga calayh isalaatu wasalaam inay diinta ku dhaqmaan inay sunnada nebiga dhaqan geliyaan diintaanay salka u dhigeen nafsadoodii iyo maalkoodii u hureen wax allaala wixii ay kari kareen oo qaali iyo wax rakhiisa intaba waa siiyeen nebiga calayh isalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi maa nafacanii maalu abubakrin abubakar xoolihiisa see wax ii tareen xoolo ii tare ma jiro waxaan rabaa waxaas halkaa la keen waa keenaya halkaas soo wada dhigaya wax kasta ha noqoto duruuf kasta ha jirto wax kasta nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay bixinayeen wax waxay haystaan oo idin marka jacaylka nebiga calayh isalaatu wasalaam saxaabada miithaalkiisa lama xisaabin karo aayadaha iyo nusuusta waa fara badan yihiin taabiciinta raggii taabiciintaasoo kale iyagana ahaye imaam maalik waxaa laga wariyey xadiiska nebiga markuu sheegaya inuu isbedeli jiray midabkiisao dhan yacni cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu markuu xadiiska nebiga sheegaya heybad uu ka hebaysanaa nebiga ayuu dhihi jiray hadal saas la mid ah mid u dhow asoo ka cabsoonay hadalkii nebiga inuu meel un ka khaldo marka يعني saxaabada ridwan ullah alayhim salafkiina saasay u jeclaayeen nebiga calayh salatu raacitaan itibaac iyo ku dayasho nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa nebiga jacaylkiisa jacaylka beenta ah
وإنا شيغتا نبيغا جعلكيس أديغو أن راعين سنة dadkii uu qofkii shirki ugu yeeraya ilaahay in loo shariig yeelo dadka ugu yeeraya oo wuxuu leeyahay nabiga naftiisa hal la baryo hal lagu xadgudbo sidii kii yiri ninkii burdaha waa kitaab nin gabyaa uu tiriyey marka Soomaalida uu xadkii ka bixisay laakiin ashcaarta kama duwana waa nabi amaan laakiin النبي أمان تريي أيات تريي أو إسقوا ده وإحنا خالدي كرا وإحنا صحي كرا مركب ماله كو في عيا ماله كو خالديه وحوري أصلا النبي أمان يكون حد يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي يا أكرم الخلق خلقك أكرم بنايو وإلهي أكتس أكرم بنايو واسح ما لي من ألوذ به meelaan magan galo ma haysto siwaaka adiga ka soo haray adiga aan ahayn meelaan u cararo aan magan galo adiga aan ahayn ma haysto leey inda xuduud alxaadith alcimami dhacdooyinka waaweyn markay dhacaan meel kale aan u cararo ma haysto hadalkaas yahay hadalka meel ka dhac way nabiga jacayl nabi miyaka ma waa meel ka dhac nabigana wuxuu alayhi salaatu wasalaam ilaahi subhanahu nina wuxuu ku yiri ma sha Allah wa shi'ta ilaahi haduu doono adigana aad doonto markaas nabigu wuxuu ku yiri aj'altani lillahi niddan ma ilaahi aad iga dhigtay mid la barbar dhigay qul ma sha Allah wahda ilaahi haduu doono kaligiide nina salaadna ma tukanayo ma soomay qaadu cunay 24 saac xule ilaahi aan jeclahay nabiga aan jeclahay alayhi salatu wasalaam hada kidb wa been wa qofka beentiisu wuxuu leeyahay maaratay dadkii uu shirki ugu yeeraya taa waxay noqonaysaa waa nacayb nabiga alayhi salaatu wasalaam shay bidcaahu dadka ugu yeeraya shay bidcaahu diinta khilaafsan dadka ugu yeeraya nabiga ma raacsana alayhi salaatu wasalaam qofka mana jecla hadduu nabiga jecel yahay wuxuu dhihi lahaa sunnadii nabiga hal raac alayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah waxyaalaha nabiga jecelkiisa aan ka mid ahayn inaad sunnada nabiga alayhi salaatu wasalaam ka fogaato oo aadan sunnadii nabiga ku dhaqmin alayhi salaatu wasalaam sunnada nabiga inaad ka fogaato oo aad gudahaadii iyo daahirkaadii aysan ka muuqan waxay ka mid tahay jacayl la'aanta nabiga alayhi salaatu wasalaam inaad jeclayn sunnadii nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ubay ibnu kacab wuxuu yidhi calaykum bisabiili wasunna waxaad laazimtaan jidka nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa fa innahu ما من عبد على السبيل والسنة مجرى أدون جد كاس نبيغا هي السنة دي سهيستا ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله أو إلهي سو حسوستي جركيسي مركا أو قريري يساقو إلهي كعب سنة سبحانه وتعالى إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة إلا واحد دنبيغي ساهوبتو وحوهوبتا سيدا جيدكا marka caleenta ay ka daadato qalashay ay dambiga uga hoobtaa buu yiri wama min abdin ala sabili was sunna majra qof jidka nabiga haystay sunnadiisa dhakara allaha khaliyan fafaadad aynahu min khashyati allah ilaahi soo xusuusta soo kaligiis ah oo marka indhihiisa ilma ka timid asoo cabsi darteed ilaahay uga cabsoonay subhanahu wa ta'ala illa lam tamassahu an-naru abadan qofka naar ma taabato yiri وإن اقتصادا في سبيل وسنة إن أحد نقطة ترتيب ستو جدكي أن هايستو توسنايو صحدا أو سنة النبي خير من اجتهاد فيما خلاف السبيل والسنة كاسا كخير بدن محكد دون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما خلاف سن فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا وحاكد عشان عمل كنا إنه النقضه عمل كنا إنه نقض من أحد إن مارت كود ذا شاء يعني اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء والسنة نبياش السنة ذا إن دذال كنا يجابين تينا بإن النقطين السنة النبي كوي كاتان عليه الصلاة والسلام أيضا أقول بدن ضدك قفك يعني دور سنة 8 سنة 14 سنة 16 سنة وضدها هي النبي عليه الصلاة والسلام قفك على المنهاج
waxaa dhici karta qofku inuu iska xamaasoodo oo xoogaa maaragtay xamaaso ayaamo wado kadibna uu ka tago jidkaas inaad haysato ilaa ilaahay kala kulmayso subxaanahu wa tacaala kaasaa wuxuu yahay yacni arrin sax ah kaasaa arrin sax ah hadda ka hor waa sheegay maraan qisadaan sheegay qisada waagaan ardayda ahayn waddanka soomaaliya waxaa la qaatay hanti wadaagga mabda'a hanti wadaagga dhallinyaradoo dhanna waxaa laga dhigay dhallinyarada kacaanka la yidhaahdo oo hanti wadaagga ah hadda waxaa laga odayaal inay yihiin dhallinyaradii wakhtigaas waa 69kii wixii ka dambeeyey marka dhallinyaro fara badana hanti wadaagga lagu akhriyey iyagaa maaragtay cambaign ideologigaas inay fidiyaan oo iskuulaad ku fidiyaan dad badana hanti wadaagga u xamaasaysnaa annagana islaamkaan u xamaasaysnayn dhallinyaro waxaan ahayn annagana dadka diinta ugu yeera war islaamka xaqa sharaaca islaamka ha la xukmiyo diinta ilaahay ayadaa sax ha la qabsado dagaalaan ku jirnay marka siraac waxaan ka jiray iskuulka dhexdiisa lagu dagaalamaayo xagga ideologiga nimankaana waxay rabaan inay ideologigii hirgeliyaan annagana waxaan rabnaa sunnadii nebiga marka annaga waxaa la dhihi jiray waa ikhwaan muslimiin waa maaragtay magacyo waa maaragtay wadaad xumayaal waa dhallinyaro yahuuday ku xiran yihiin balaayay ku xiran la dhihi jiray nin waxaa jiray waagaas hanti wadaagga nafta noogu keenay nafta hanti wadaaggaan dhex maray madaxa hanti wadaag ka jiiray markaasuu nafta noo keenay waa la xira qofka waa la xiraa 3 bilood oo soo leefaa markuu 3 bilood soo laqa kadib waa la soo daynaya dhallinyaradaas gacanka way ku xiri karaan hadday rabaan marka ninkaan naftu noo keenay ninkaasaan annagoo wadaadda ah waagii kacankii markuu dhacayoo mar dambe ninkii waxaan aragnay haddana jabhado ku dhex jiro oo qabiil iyo jabhado dhex boodaayo marka fadhigaan maal isugu nimid waxaan idhi war wuxuu yidhi waxaan idhi war cali aa la dhihi jiro war caliyow waa adigii hanti wadaagga ideologigiisa rumaysnaabe oo nin ideology haysta ahaaye haddana ma qabiil iyo jabhad iyo waxaan macno lahayna hadda aad ku soo noqotay haddana meeshaan maa dhex boodaysaa markaasuu wuxuu yidhi wallaahi nimankan wadaaddo waay waagi teer iyo waagi ilaa haddana wadaaddo waay weli waxaan ku nidhi caliyo weli annaga waddadiiaan haysanaa waddadii nafteediiaan haysanaa adiga ama jabhad iyo qabiil gal wallaahi wuxuu yidhi anaa ilaahay hortiisa markhaati idinkagaa inaad waddo saxa haysateen waagii hanti wadaaggana saanad diinta u haysateen haddoo qabiil ay tahayna saana u haysataan insha allahu tacaala welina waddadii aan ku taagannahay insha allahu tacaala weli waddadii aan haynaa alxamdulilah ummadda soomaaliyeed culummadeedii wakhtigaas soo dagaalantay oo la soo dagaalantay ideologiga iyo waddanka dhan in la taqyiiriyo oo dadkaas hanti wadaag iyo ishtiraakiye laga dhigo alxamdulilah sidii dacwadii maanta iyagaa guulaystay dacwada marka waddadaas waxayna ku guulaysteen inay si dhexdhexaad oo tartiiba u wadaan oo calaa sabiili sunna iyo waddada nebiga calayh isalaatu wasalaam in dadka lagu saxo oo loogu yeero oo aan marna laga leexan taasaa maaragtay ilaahay guul ku keenay subxaana wa tacala waa hadalka uu leeyahay ubay ibnu kacab aliqtisaadu in lagu gaabsado maaragtay waddada wuxuu yidhi iqtisaadan waijtihaadan wuxuu yidhi faxrisuu an takuuna acmaalakum iqtisaadan waijtihaadan calaa minhaaji alambiyaa'i wa sunnatihim sunnada iyo dadaalka jidkaa nebiyaasha haya isbeddelkana kaasuu ku imaan waa midka culummada ay sameeyeen iyadoon qofna dhib loo geysan ayaa hanti wadaaggiina waa tegey shuuciyadii waa tagtay wixii dhan waa tagay waxaa soo haray sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo towxiidkii iyo waxaa soo haray xijaabkiia soo haray waxay rabtaa in sidaas marka sunnada nebiga lagu wado taasaa jacaylka nebiga calayh isalaatu wasalaam wakhtigii salaadda la joogaa in sha allahu tacaala waxaa ka mid ah jacayl la'aanta nebiga calayh isalaatu wasalaam axaadiista nebiga inaad celiso diiddo waxaa ka mid ah inaad siirada nebiga iyo jidkiisa ka leexato waxay ka mid tahay nebi nacaybkay ka mid tahay waxaa ka mid ah nebi nacaybka inaad sunnadiisii aad ka haajirto kuna jeesjeesto dadka ahlu sunnaha ah inaad sunnadii nebiga qof sunnadii nebiga ku dhaqmaayo inaad ku jeesjeesto ay kula xumaado oo sunnadii nebiga kula fool xumaado sida qaar ay yidhaaheen dadka fiiri maradaa lowga u joogtaahe
مرضى اللوجو وجوكتا فيري جرح وسيد يستيو أفر حباء فيري وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يهدي النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى وحكم إذا إن الدين تبدأ كصدرته جعل النبي معها بدعة إن كصدرته وح النبي أمرين إن ضدك كوجا جعسو معها يعني نبي جعل معها سيدتك هذا مولد كأيو مولد النبي ما أجين عليه الصلاة والسلام وحفل الله دق النبي عليه الصلاة والسلام نبي ما أمرين ما أنا أجين لا حديث واحد نبي ما دهن أنا قال الله في استعداد شديد نبي الصحابة الدكتور أنت السنة كسوريكتي مارتي وحكم ذو حالها بدع ذو فرح بدن له إسراء معراج كله حفل ذيو بقول شيء حترضى واحد جنيه فرح بدن والله سمعنا ذات جيبك كذا صباحين واحد اسمعها نبي جعيل معها نبي جعيل معها نبي جعيلك وأنا الرعد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي مولود ما فاستين واحد وفاستين نساء قال هذا كأركتي قال هذا واحد عيسى وفاستين وقت ولا شيء كريسماس يا أيها دقن كإسكالها يعني النبي اللي يسوق قوري معها عليه الصلاة والسلام جعل نبينا معها عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى وقت وانا ماضي صلاة المغرب كان للجوغا إن شاء الله تعالى محاضرة انت ساكوسو قابلنا إن شاء الله تعالى إلهي النقد يكون النبي جعل عليه الصلاة والسلام إلهي النبي يكون جعل الله النقد يقول إلهي الدنبي إنها دافو إلهي سبحانه وتعالى دينت الله نسوقه إلهي فتنتها النقبت باديو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته